بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، waxaan qaadanaynaa insha Allah tacaala haddana furiinka asbaabaha keeni karta. asbaabaha furiinka keeni karta way badan yihiin, wado walba way ku imaan karaan, dhinac walba way ku imaan karaan, laakiin waxa ugu waaweyn oo aan ku soo koobi karnaa waxay tahay al-khiyaanatu az-zawjiyya. khiyaano in meesha imaado, khiyaano ama ninka inuu khiyaano sameeyo ama gabadha inay khiyaano sameyso. arrintaasi khiyaanadaasi furiin ayay keeni kartaa ugu dambeyn. waxaa kaloo ka mid ah ikhtilaafu zawjaani, labada qofood inay iskhilaafaan. khilaafkooda hadduu joogto yahay oo mar walba ay iskhilaafayaan, ugu dambeyn waxa waaye waxaa keeni sheekadaasi u socoto furiin ayay keeni kartaa. waxaa kaloo ka mid ah fuqdaanu sabri wataxamul, sabarka iyo dulqaadka inuu dhammaado. haddii sabarka iyo dulqaadka labada isqabta uu ka dhammaado, arrintaasi waxay keeni kartaa furiin, ugu dambeyn in la isfuro. waxaa kaloo ka mid ah ikhtilaafu tabaqaati, labada isqabta darajadooda inay kala dheer tahay. tusaale ahaan, labada qofood mid ka mid ah ayaa lacag haysto, ama ninkaa lacag haysto ama gabadha lacag haysato. haddii labadooda isku darajo aysan ahayn mar walba oo qof uu hooseeyo, arrintaas ugu dambeyn waxay keeni kartaa in la isfuro. sababtoo ah aan ka dhaadhiciyo, gabadha haddii lacag leedahay ama gabadha haddii shaqayso oo ninkan waxoogo xaaladiisa ay liidato, mar walba waxaa laga yaabaa in problem ninkaas uu haysto. oo xitaa haddii noloshiisa uu ku faraxsan yahay, islaantan ama gabadhan xaaskiisa shaqaynayso, waxaa laga yaabaa markay isqabsadaan oo buuqa isku qabsadaan ay dhahaan, warniyo maxaa qabataa adiga sidaadaba horta, maxaa isiisaa ani, war anigaa isbiilo, gurigeyga anaa haysto, anaa saas ah, inay ku qabsataa laga yaabaa. asagana lacag hadduu haysto waxaa laga yaabaa in gabadha uusan daneyninba, oo yacni oo biilkeeda markuu siiyo oo bis magaaladiisa inuu iskaga soo raaxaysto, laga yaabaa in gabdho kale iska guursado. waxaaba laga yaabaa khudbo siro badan inuu iska qarsado. waxay ku fiican tahay marka labada qofood isku darajo inay ahaadaan, aysan kala sareynin inta badan. arrintaas furiin way keeni kartaa. waxaa kaloo ka mid ah furiinka keeni kara labada qofood mid ka mid ah hadduu muuqaalkiisa yacni wax uu ka qarinayo. waxaa laga wadaa siduu hadda yahay ma ahee wax buu qarsanayaa, khiyaanuu qarsanayaa, lugooya u duugan. labada qofood mid ka mid ah hadduu wax qarinayo, waxa waaye furiin way keeni kartaa ayadana. sidoo kale cadamu itifaaqi usra, qoyska inaysan yacni qoyskan reerkan gabadha iyo reerka wiilka inaysan heshiis ahaynba oo mar walba iska hor imaanayaan. taasna waxay keeni kartaa in la iska hor yimaado markii dambe wiilkan gabadhan la kala furo. xitaa ayaga haddii isjecel yihiin, waxaa la leeyahay jaceylkiina wax ka jira male, ka kaca meesha socdo, haddii qoyska ay dagaalsan yihiin. waxaa kaloo ka mid ah incidaamu tawaasul, in la waayo xiriir sheeko ah. micnaha wiilka iyo gabadha inay iska warhayninba, labada qofood oo isqabta ma sheekaystaan, ma isxaala weydiiyaan, bis waa kala socdaan. hadday kala socdaan, ugu dambeyn kala socodkaas wuxuu keeni karaa furiin. sidoo kale waxyaabaha furiin keeni kara waxaa ka mid ah xuduud talaaq musbiq fi lcaa'ila. qoyskan ama reerkan isqaba haddii hore la isku furay, furiin hore hadduu jiro, buuqa inta badan inta la arkay ma dhammaado. waa laga yaabaa ilaahi subxaana wa tacaala inuu dejiyo uu xaliyo, laakiin mar haddii la isfuray, labada qofood waaba kala dadsan yihiinba, waa kala boodsan yihiin. haddii dhibaato ee dhacdo yar isku qabsadaan, ifur waa ku furaa ama meesha ka imaanayso. taasna waa keeni kartaa in la isfuro. waxaa kaloo furiin keeni kara alghiiratu idaa zaadat alghiira bayna azawjayn can xaddi tabiici. maseerka haddii xadkii loogu talagalay uu dhaafo, furiinuu imaanaa. ninkaa maseer badan intii soo galay
برفون أو برفون كي هنا جوريان كسو عرفوه تلفون كان يا واي يا كسو وعي يا لهالليسي يا كسو فيري sheekadaas mar day bilaawato maseerka oo xadkiisa rasmiga ah duu dhaafo fariin waa imaan karaa ama gabadha naftirkeeda di maseerkeeda oo bato oo ay dhahdo talay yaa la hadlaysay message-kan yaa u direysay inta ka imaaday waa soo daahday waa yeeshay haddii mar maseerkaasi tirada badan oo xitaa haddii wax yar leh ku aragto ninkeeda khoorta u galayso maseerka hadduu dhaafo xadkiisa furiin ku tashaalaha maxaa yeelay labadan qofood isma aaminsanaba waa kala boodsan yihiin walba in kale ka boodsan yahay marka maseerka tirada badan asagana wuxuu keeni karaa in la isfuro asbaabahaasi iyo asbaabo kale oo ka mid ah oo ka badan laakiin intaana is leenahay ayaa ugu muhiimsan ayaa keeni kara in la isfuro marka insha Allah ta'ala furiinkaasi asbaabaheeda insan ku soo gabagabeynayna wa billahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh